iskaashi labada dawlad goboleed oo ay kaalmaynayso oo ay xoojinayaan EU-da oo arrimo badan aan oga hadalnay aan ku qabanay degmada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayadoo ay nagala soo qayb galeen safiirka EU-da iyo safiirka Sweden oo oga hadlaynay arrimo badan oo qoseeyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle arrimahaas oo kamid ah amniga iyo dib u heshiisiinta sidii loo heli lahaa labada dawlad goboleed ay u heli lahaayeen amni iyo dib u heshiisiin oo la isuguna furi lahaa wadooyinka dadka labada dawlad goboleedna ay u heli lahaayeen xuquuqda amni oo asaasiga ah ay leeyihiin waxaan kaloo ka wada hadalnay kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga sidii loo horumarin lahaa ayagana oo dadka xoololeyda ahna ay u heli lahaayeen xoolahooda sidii loogu horumarin lahaa beeraha iyo wax soo saarkiina loo xoojin lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo furi lahaa wadooyinka loo samayn lahaa business iyo dhaqaalo dadka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay dhaqaalahooda uu ku soo kabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arrinta fatahaadaha wabiyada oo ah in soo noqnoqotay muddo dheer ku soo noqonaysay deegaanadan Shabeelle sida Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedba in xal waara loo helo fatahaadaha xal waara loo helo wabiyada biyaha ay keenayaan in xal waara loo helo ayaan ka wada hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii dadka barakacayaasha ayagana loogu heli lahaa xal waaro sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay oon ka heshiinay in xal loo helo dhismaha maamulada hoos u daadejinta golaha deegaanka in deegaanada dhismaha golihii deegaanka hoos loo daadajiyo degmooyinka dhan loo suubiyo golo deegaan oo ay shacabka leeyihiin oo degmo kasta aan gaarsiino intaba waa ku heshiinay si fiican uuna ku dhammaaday shirki waxayna ballan qaaday EU-da iyo dawladda Sweden-ba inay maalgelin ku sameeyaan intaasoo mashaariic ah aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Hirshabeelle waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo runtii si fiican aniga wafdigay ugu soo dhaweeyay waxaa kaloo mahadcelinayaa safiirada EU iyo Sweden oo runtii shirkan qabashadiisa iyo dhaqangalkiisa qayb weyn ka qaatay sida madaxweynuhu uu sheegay arrimaha aan ka wada hadalnay oo xagga amniga dib u heshiisiinta sareynta sharciga oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo booliiska wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta ganacsiga iyo inaan dadka laga mataqaana tabarta daranne dadka soo qaxay dadka displacedka ama mataqaana barakacayaasha dadka soo noqday inaan ayagana laga tegin oo safety net loo sameeyo runtii shirkaas muxuu ahay oo runtii aad arrimahaas loogu falanqeeyay si guul ayuu ku dhammaaday dooxadan webiga Shabeelle oo maro oo runtii ah dhaqaalaha Soomaaliya meesha ugu muhiimsan una ah saldhigga cashuurta hadda dawladda federaalka ay ku socoto haddii la xoojiyo oo dhaqaalaheeda waxa laga qabto oo muxuu ahay ganacsigeeda la horumariyo waxay qayb weyn ka tahay dawladnimada iyo xoojinta horsocodka Soomaaliyeed runtii arrimahaasna waa la isla qiray waa la isla qeexay waxaan qaadi doonaa tilaabooyin wax ku oola oo lagu xoojinayo horumarka dhaqaalaha dooxadan labadan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa safiirka European Union Nicolas Berlanga I would like first of all to thank the President of Southwest and the President of Hirshabeelle for hosting us today, and more important, for giving us the good excuse in favor of dialogue. Of course, during the day, our delegations talk a lot about interstate collaboration and cooperation,
and also ways in which the European Union and the European Union member states can contribute to this interstate collaboration. But the most important point was the excuse to really to show in another way how important dialogue and contact among the different leaders could be essential for all the challenges that we are facing in Somalia in 2020. Beyond development and beyond cooperation, there was also some exchanges about election at federal level, about how we can all together contribute to this needed dialogue, and also we talk about different projects related to security issues. In brief, that shows that a nice spirit of friendship that definitely, Mr. President, we are very much interested to keep, and we are at your disposal to continue this dialogue and cooperation. Thank you very much. Thank you so much, Mr. President Laftagarin and President Ouattara. And we're very happy to be here today and talk about how the rivers can become the source of development and economic and social strength in a country. In a country like Somalia, where you have flooding almost every year and droughts almost every other year, harnessing the rivers and using them in a positive sense must be the key to the future. And this cooperation between two states like Hirshabelle and Southwest is very promising in that respect, and it's a very interesting possibility of cooperation for us as international partners of Somalia. Cooperation between Southwest and Hirshabelle and the two presidents also shows the importance and the contributions cooperation between and among the states can bring. And the states in a federal system, together with the federal government, of course, are the building blocks, the key actors in bringing this country forward in peace and development. And without peace, there would be no development. And without development, there would be no peace. So these two pieces are essential for the future. Thank you so much.